waxaan sheegnay ummadeena Soomaalida waa ummad isku af ah oo isku midab ah oo isku diin ah mushkilada haysatana waa mushkilada kursigan yaa qaadanaya iyo seel lagu qaadanaya si heshiis lagu yahay oo la isla ogol yahay hadii la gaari lahaa dib ma dhaceen inaga mushkilada inagu dhacday waxay tahay dadku markay heshiiyaan ayay waxa ay heshiis ku yihiin samaystaan marka waxaan inoo kala hormarsiiyay ama inagu aan soo kala hormarsiin hadii la rabo meeshii gadaal la marsiin lahaa ayaan soo hormarinay oo ah heshiiska iyo kursiga horta yaa horeeya waxay aad marto heshiiskii inuu horeeyo oo dadka heshiiska markay wax samaysanayaan dibba kama taagno hadda ururada waxa soo qaaday midna ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ama shirkadaha ganacsiga ama ururada dhalinyarada xaafadaha waa dad is ogol waxay qabsan lahaayeen way yaqaanaan markay doorasho sameynayaan inay wax dhistaan heshiis ay ku yihiin cidii soo baxda marka oo markii la doorto soo baxda wax dhib oo ka taagan ma jirto maxaa yeelay dad heshiis ah wax samaystay wixii shalay aan isla samaysanay aan isla wadno way ogol yihiin marka ardaydu مثلا doorasho la galaya ururkii ardayda jaamacadda la sameynaya kulliyaadka kala duwan laga soo ururinaya markaas waxa la intaas oo la isku daray ayaa waxay dooranayaan gudoomiye doorta ayaga dhexdooda way dooranayaan midaa soo baxaya kulliyadu dhigto muhiim ma aha ama computer ha dhigto ama caafimaad ha dhigto ama engineering ha dhigto ama shariica ha dhigto ardaygii soo baxa asaga bas dadka dhan way raaceen waxay leeyahay gudoomiyaha ururka jaamacadda ee sanadkan intaas waa hebel sanadka markuu ka dhamaadana hadana marka la isu imaanaya doorasho la sameynaya mid kale ayaa hadana la dooranaya halka ayaa la soo maxaa la sameeyay heshiiska la hormariyay kursigana waa la dib marsiiyay laakiin naga siyaasadda maxaa la sameeyay kursiga la soo hormarsiiyay heshiiskana gadaal loo dhigay marka kursiga markii la qabsado dad aan heshiis ahayn kursi markay isku qabsadaan maxaa dhacaysa in heshiis ugu ma ah in la islu gooyo marka وكاس أدنى قاضي وكاس أنا وان قاضني قاضي وكاس والدقاقي واي مركب وحين نقول داعي مركب نظام كي أمتنا وحلوقو لسلها نظام أيجو صومالي أنا كي ما ظهرت مجرو فدرال كصومالي المقدم فدرال اللي هذا هو أمر مروح يقول داعي فدرال كان دورني أي داعيان يا إنه ويدي هرت قف إنه ويدي ولي ما رتين داعي محل ربطان لاسمه ويديني وح كل بمل سيد عرورتي وحلا موت مركب باديها لجوراي ماشى الله صعد ما يقانن عروته مسافة أي وجرت ماشى لو جوري المهم ما يقانن ولا لويسينا ويسعون عن المهم مركب يدالن وحوجا السعودان يحيلين وين دالنا حاجة اللي تجي دونا مركز الله ما ساعد بله جيت كاس اللي تجايا جدنا جيت كده معنا مركب المية جيت كوفيرنا مركب جيت كاس السعودان ولا جيت كي وهداي فيرنا ولا سوق جاري ما بل الدجايب هو كي جيت كي ولا جاري هذه جيت كاس فير هذه كان محكرتها مالن والبا وحوغا marka la socdo geed kale loo tilmaama mar uu rafaaday casarkii la gaaray alle waa ka meeshan u soconay sidii amal ay nagu dhigeen waxay dhahaayeen Soomaaliyeed nidaamkiina siyaasiga see loo dhigaaya markaas ay waalidiin sameynaya geedkaas la degaaya kolba say geed noogu soo wadeen hadda waxayna soo dajiyeen geed la yiraahdo federaal aw federaal oo maxaa tahay adiga waxaan naqaano ma ahane awowgeena kumuna soo dhaqmin waxaan horay u aragnayna ma aha waan maqalnaa soo buwaagta ku qoranay sida ay tahay yaase loogu talagalay waxa loogu talagalay dad qowmiyad kala duwan ah oo isku diin ahayn oo isku luqad ahayn oo isku qowmiyad ahayn oo laakiin hadana dawlad ay ka dhaxayso yaa waxa la federaal wax la yiraahdo ka dhaxeeyo qowmiyad hebel ay idinkana meeshina jooga qowmiyada kale meesha ha joogto qowmiyadaas meesha ha joogto inta oo la isku darayna wadankaas aan isku nahay la socda federaal aan isku nahay hadda mesela Ethiopia oo kale ka soo qaad inta qowmiyadood ay degan yaani isku mid ma ah qowmiyada Soomaalida qowmiyada Oromada qowmiyada Tigreega qowmiyada Amxaarada qowmiyada Hereriyiinta Bani Shangolka yaani inta qowmiyadood ay kala yihiin qolo walba meesheeday waxay ku leedahay maamul goboleedkooda waa qowmiyad laakiin Soomaali u imow qowmiyada Soomaaliyeed markii la yiraahdo qowmiyad kale waa la inoo waayay federaalna waa la inagu soo tuuray see yeelina markaas waxa la yiri marka gobol ha laga dhigo gobolkii waa dad isku mid ah waa isku qabiil hadaa qabiil hadii la dhigay qabiil uu kala geeyay qabiil uu kala bixiyo male marka dhakhtarku haduu daawo ku soo qoro cudur aan ku haynina uu daawo kaaga qoro qofkan malaria laga helay positive malaria loo soo qoray haye soo lama rabo malaria daawadeed in loo qoro hadii daawadii malaria daawo aan ahayn loo qoro malaria ma tagayso wuuna ku sii jirnaa marka Soomaali oo jirana la arkay
dhakhtar inoo imaaday dhakhtar oo waxba ka siinaa uma inuu ahaa federaal oo inoo qoray marka daawadii la inoo qoray waan ku xanuunsan waan ku jirnay marka hore waan sheegi jirnay si nadare war waxaan waa lagu xanuunsanayaa daawadeeni ma aha tan tii la inoo qori lahaa inaga ma ah inaga daawadeenu mushkilad ayaa ina u dhacday mushkiladeennuna mushkilad hadda cirqi ahoo isir nacayb ahoo isdabargoyn ahoo noocaasa ma ah waa mushkilo ah kursigan anaa qaadanaya iyo anaa qaadanaya farsamadii aan kursiga u wadaagi lahayna si kastoo la isugu dayay si la isku waafaqsan yahay ilaa hadda waa la soo saari laayahay hadda maalan habka loo qaybsado Soomaaliya wuxuu qaybsadaan bal cidda raaliga ku ah ha soo sheegta kuwa hataa kuraasta ku helay sida ay ku yihiin ay kuraasta ugu fadhiyaan raali kuma ah way og yihiin war waxaan waa been waa ognahay saan ku imaanay waa ognahay laaluush iyo wax isdaba marin iyo dad maxay ahayd isku dir iyo saan yeel ayaan ku imaanay haye saan yeelna sidii saxda lama hayo sidii saxda see lagu helaa ilaa hadda see lagu helay waaba meeshan isku hortaagan yahay maxay naga soo baxay marka natiijadii soo baxay daawadii aan la liqnay waxa soo baxay doorasho kasta oo la galo saddex unug lay dhalahay mataano kuraasi ay noo badatay waa laga dhergay kuraasi markaas intaas oo baarlamaan ah intaas oo maxay wasiirre ah intaas oo madaxweynayaal ah fudfud barako meesha ka dhacday waa laga dhergay laakiin natiijadaasi qof kasto aqal qof kasto oo Soomaali ah markuu fiiriyo waxa inagu soo baxay dad waaweyn oo iska ciyaaray wali maartay dad waaweyn hada ciyaarta carruurta ku ficilad moogtahay wax aan macquul ahayn oo qof walba ogay inaysan soconaynin oo haddana la sii matalay ka waran waxaan markii oo ardayda wax la baraayo yaa marmar waxa la masrixiyo wax la dhiga riwaayad amal dhiga markaas ardaydu waxay dhigayaan marka mid oo maalan waxbarashadii ka seegseegay mid waxa laga dhigay maxay ahayd garsoora laga dhigay mid askari laga dhigay mid waxa laga dhigay tuug oo waxba soo xadaal dhihi oo saas mid riwaayad la dhaha marka qof walba dowru matali marka ki garsoora laga dhigay meel bal fariisin ko alla soo qaban isla ardaydii leeyahay markaas waxa laga rabaa marka qosolka iyo majaajiladaas iyo fikrad marka la gudbinayo oo ah dibjirnimadan iyo waxbarasho ka haritaanka xumaatada ay leedahay kooja ka haray jaamacadii oo seegseeg noqday kii la jilaaya kii oo la soo qabanayo oo wax la baraayo oo marka dambe qof fiican waa masraxiyad siyaasadani hadda wax iska noqotay masraxiyada ilmuhu ay dhigi jireen oo kale haye adiga xaalka ka waran anna ii soo aroori maxay ahayd xildhibaan ma weyna aniga hebel waa qortay idoorta idinka waa ku dooranay madaxweynaha haye madaxweyne xaq istaag adna madaxweynaha adna xildhibaanaad eber taas maxay tahay natiijadeeda waa natiijadii maxay ahayd oo federaalku inoo keenay marka alxamdulillah hadda waxa ay tahay horta inaan fahamnay wax weyn waay Soomaaliya waxa ku maamada balaayo ma fiicnay dhahay waxa aragna ma xumo dadkii laga kari lahaay war waxaan wax ma naqaan aan dhigi jirnay ma uu taraaya maanta soo lama taagna mowqif ah doorasho kasta oo la sameeyay madaxweynayaasha lay sii badinaysaa wax natiijo kama soo baxayo haddaan dib la isugu noqonayo war waxaan daawada waan ku jirayna ma anfacaysa mid kale ma raadina dhalinyarada laakiin fursad waxay u tahay wixii aan soconaynin markii intii korka dadka laga saaro ay arkaan inaysan soconaynin 10 fiican ka soo baxay kuwii nugu korka naga soo saarayna wayna waardeysanayaan maanta dadka Soomaalida aan ahayn ee farsamadan inoo sameeyay maanta oo kale ugu fiican ay say ugu jecel yihiin maanta u taaganta waxay ugu fiican yihiin waxay ku faraxsan yihiin war horta wixii aan u dajinay maabkii aan u dajinay ee kala googoynta ahaa horta xaqo inoo maraaya markay iswareysaan maxay dhahay marka waa sidii ugu fiicnay Soomaalida oo kala bixila oo qoorta isku wada jirta oo natiijo la'aan ah marto ma soo gaarsin in tamsaskum hasanatun tasum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha way ku farxayaan laakiin ayagana maxay ka qaadeen afmaamay waxa la abaar badheeda agoonko ka ilbahay abaar kasto ay maata agoon la ku ilbahay si loo nooladu fahmaa maalmaha hore yara rafaada abaar jirta laakiin maalmaha dambe meelaha wax laga helay intuu fahmo buu gaangiistar xoog la noqona marka abaar kasto dhacda agoon baa ku ilbixiyo wax ku fahmi marka mashaakil kasto ina qabsada ummadeenu baa wax ku fahmayso inayna cidna inoo maqnayn in ummadeena la sii lugooyo oo hoos loo sii wada ma ogiye ummad kor u socota inayna ahayn ayaa soo baxays ayagana maxay ka qaadeen waa ku fahmneen bariga dagaalada sokeey wadankeena ay ka dhaceen bilowgii ya ku maskaxda looga jiro ka soo yar khafiif ah ya qabaa'ilku waa iska qaban moogtay qabiilkeed tahay waxba la isdhiho waa ana qabiil waxba la isu dilay qola marka meel lagu aruuriyay oo maxay ahayd markaas in dadka in ama laga argoosto ama qabaa'ilka saas oo kala Soomaalidu waa dad isku mid ah yaani ma la kala yaqaanee
abti iyo adeer waxba isu yihiin way isbixin jireen qof marka مثلا qabiil meel jooga markaasi oo awood yeesho oo kuwaas ay kuwooda wax magaradka ay dadka laynayaan inta cuqalada wax fahamsan way ka celinayaan intay dadkii aruuriyaan oo meel geeyaan ilaa waxa la isku haysto waa siyaasada waa kursiga ma dadka la dhameeyo iskuma ogeyn marka intay ka celin karaan ay ka celinayaan kooxa marka meel lagu xareeyay si loo ilaaliyo mid kooxdaas kamid ah oo maskaxda looga jiro oo qabiilka la dilaya ya banaanka u baxay laamigu iska soo marmaray mid kuwa mooryaanti aha qabteen marka waraaya qabiilka tahay shoo qabiilka la raadinaya la dilayo kamid yahay qabiilku iska sheegtay qabiilkaasaan ah ha xageed ku jirteen aniga koox badan ba guriga aan ku jirnaa ani kaliya ma imalaysa koox badan inta ku xareysan soo baxna tusba uu soo kaxay intuuna soo gaarin gurigii oo banaanka soo socdaba oo meesha ka qayliyay gabar Saynab oo ku jirtay dadkaas yuu la hadlaay markaas wuxuu Saynabay waalina fahmay soo baxa marka hadda waxaan leeyahay kuwa federaalka noo keenayo waalidii fahmay soo baxnimay Soomaali inaad waxba u haynin inaad isku dirtaan ma ogiin marka waalidii fahmay ummadan Soomaali inay dib isugu tashato oo dhacin oo maqan ma jirto nimayo inagu baa inuu isku baabi'inaya inaga aan isku tashano diinteena ayaa xal inoo ah haddii aan daba orodno kuwa aan mu'minka ahayn hadda isteerinka inoo haayana quraanku soo inoo sheegay meel ma ina geyn doonaan yaa ayyuhalladina aamanu in tudii'u alladina kafaru yarudduukum ala aqaabikum fatanqalibu khasirin waxa idin celinayaan meel dambe waadna khasaari doontaan dadkooda yeeshaan bal ilaahu mawlaakum ilaahi baa gargaaridin ilaahi subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaada marka ummadeena alxamdulillah waxaan ku faraxsanahay yaani wacyiga iyo isbedelka ummadeena bariga hor waxyaabahan oo kale markay dhacaan mar hore la isku dhamaan jiray inta ay in ka yar la isku baabi'in jiray laakiin hadda maanta waxay taagan tahay dhalinyaradii iyo dadka dhan waa la fahmay waxan waa ruwaayad la dhigay run ma ahane yaan ilmaha la isku dhameeyay way macnaha marka baxayalay kuraas dad isku haysta inay dhalinyaro isku halaagaan oo dhaadna soo bax dhalinyaro waa inay isweydiinayaan war adi maxaad walaalka u dilaysaa adna walaalka maxaa u dilaysaa inaga maxaa inooga faa'iido maxaan ka helaynaa odayaal madax dadka isugu dhufanaya ayagina meel kala aadaan barina ayaga isu imaanaya haday heshiiyaana dhalinyaradu waxay dhaan waan heshiinay kala jooga haday isku dhacaan oo xisaabtii ay khaldanto kisti la isla fahmi waayo ilmihi hadana waxay leeyahay ha waan isfahmi weyne isku bilaaba waxa sawira marka war in la yiraahdo war Allah ahada qof muslima qof kale muslimka waa walaalkiis kuraas cidi isku haysata dadka soo dhaxdhigto ha tiraahdo doorashan rabnaaye yaad u dhiibanaysiin taasna lama ogolo waxa la isku waafaqay hadii ummadan islaamka la yiraahdo doorasho ayagu ha is doorteen cid ay dooranayaan way yaqaanaan qof wadani ah oo wanaajinaya oo wadankiisa ka shaqeynaya ayay dooranayaan